madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarka ka jaray safaaradda Soomaaliya oo dayactir iyo dhismo ballaaran lagu sameeyay munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha xarunta safaaradda Soomaaliya isla markaana goobjoog ka ahayeen wasiiro xildhibaano qayb ka wafdiga madaxweynaha ganacsato jaaliyad arday iyo marsharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray dhammaan xafiisyada ay ku shaqeeyaan diblomaasiyiinta ka howlgasha safaaradda iyo dhismayaalka lagu soo kordhiyay safaaradda dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo munaasabadda xarag jarka hadal ka jeediyay ayaa u mahadceliyay ganacsatada Soomaaliyeed ee qayb ka qaatay dayactirka safaaradda isagoona ku booriyay in sidoo kale ay qayb ka qaataan dib u dhiska dalkeena cawa taariikhi ah oo runtii aad iyo aad u weyn waaye waxa caawa halkan ka jira waa ka weyn yihiin guri la dhisay waa ka macno weyn yihiin waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa uguna mahad celinayaa horta dadka Soomaaliyeed ee degan dalkan Uganda ee ka qayb qaatay dib u habeynta ama dib u dayactiridda safaaradda waa wajigeennii ay qurxooneeyeen dadkaas aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed aduu yeesheenna adinkaa iskale dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadaal badan iyo Soomaalinimadu waa nala weyn tahay ilaahay idinkiis laakiin hooyadii Soomaalinimada waa dawladda Soomaaliya taasaan isugu tegaynaa cadawga nagu habsadayna ilaahay idinkiis waa iska dulqaadaynaa muddadan Soomaaliya oo qurux badan oo lagu naaloodo oo qof kasta u soo dalxiis tago oo ilmuhu marka iskuulka la xiro la keeno dhammaan meel kastoo ay joogaan si ay afka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo maxaan ku yiraahdaa nolosha Soomaaliga dhabta u bartaan taas waa mid soo socotoon u wada taagannahay idinkana waxaan idinka rabnaa inaad dhinaciina uga soo istaagtaan ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay ganacsatada qaybta ka qaatay dhismaha iyo dayactirka safaaradda Soomaaliya Uganda